صلاة عليا طب عليا halka waxa kugu diyaara kuntum ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha sare ee ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland General Maxamed Xuseen Faarax Xiirane ayaa galabta soo gaaray magaala xeebeedda Saylac ee xarunta gobolka Salal taliyaha oo ay weheliyaan saraakiil sare oo ka tirsan ciidankaasi ayaa markii ay soo gaareen saldhigga ciidanka ilaalada xeebaha ee jiida galbeedka dalka Soomaaliland ayaa waxa salaam taliye oo diiran ku qaabilay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha jiida galbeedka Soomaaliland Kabitan Harun Siciid Cali iyo cutub kamida ciidanka quwadda ilaalada xeebaha ee jiida galbeedka Soomaaliland waxa kale oo iyaguna salaantaasi goobjoog u ahaa taliyaha qaybta booliska gobolka Salal gaashaan la sare Maxamed Cabdi Liibaan iyo ku-xigeenkiisa Cismaan Xaashin Daahir taliye Maxamed Xuseen Faarax Xiirane oo hadal kooban ciidanka halkaasi uga soo jeediyay ayaa waxa uu yiri يسان شغاديسي درجين لين ماشي صاحبي جالسين انا هرو وثيقه فرم ميل بيتان هذا بدل ركتان وين نوع فوق سدره هذا بان فرحسان عيدن كان هارون عيدن كاغا وين سلاميه انو احترموا يي ومتقنا اذا او شيء لا تيمي هذا في هذه اكبر فرحسان شيء هذه أيضا مصاحبة وأنا تعرفين صوت لي أول هوش سكس أرد الجرين دلا كده يقول ميجي بسودو كنا وحرمين المقلة إذا أنا المقلة يارك مس ميدا وحرم دلا كده يقول مين المقلة حوق الوقت ibaatinka taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhawaan madaxweynaha dalku u magacaabay xilkani ayaa ku soo beegmaya xilli ay colaado horle ka curteen dalka Yemen ee aynu dariska nahay Maxamed Cawaala Daahir Shinila News magaalada Saylac